قصص الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalkayga muslimka ahaw walaashayda muslimada ahay waxaan idiin soo gudbin doonaa qisadii dulqarnayn. waa kuma dulqarnayn? dulqarnayn waxa uu ahaa boqor saalixa, waxaana uu alla makaniyey cilmi iyo xigmad uusan eebba siin qofna xilligiisii. dulqarnayn waxa uu ugu yeeray adeecidda alle qowmiyado kala duwanaa oo noolaa xilligiisii, waxaana ka mid ahaa qoomamkii uu ugu yeeray waxdaaniyadda alle qoom aanu fahmayn cidna, yacni luuqad, isla markaasina aan lahayn turjubaan, oo ku noolaa laba buurood hortooda. buurahaasi oo ay ku noolaayeen ya'juuj iyo ma'juuj. waxaa la wariyaa inuu dulqarnayn qoomkaasi ku fahmay cilmigii iyo xigmaddii uu alle siiyey, waxaanay uga dacwoodeen ya'juuj iyo ma'juuj oo dhibaatayn joogto ah ku hayay qoomkii ku noolaa labadaasi buurood hortooda. waxay ka codsadeen dulqarnayn inuu derbi uga xidho ya'juuj iyo ma'juuj, waxaanay u ballanqaadeen inay siin doonaan lacag haddii uu shaqadaasi qabto. dulqarnayn ayaa ka diiday lacagtii ay u ballanqaadeen, waxaana uu ugu yeeray wanaagga, xumaha ayuuna faray inay isaga tagaan. intaasi kadib dulqarnayn ayaa qoomkii weydiistay inay u keenaan macdanta birta ah oo gabalgaballa ah. markii ay keeneen kadib ayay ku dhalaaliyeen isagii iyo qoomkiiba looxaan, kadibna waxa ay ku xidheen labadii buurood dhexdooda. waxaana la wariyaa in macdantaasi uu dhalaaliyey dulqarnayn ay ku xidhan tahay ilaa iyo maanta buurihii uu ku xidhay ya'juuj iyo ma'juuj. waa maxay sababtaan idinku soo gudbinayo qisadan? waxaan idinku soo gudbinayaa qisadan inaad daalacataan cilmiga oo aad noqotaan dad cilmiga baarbaara. ugu dambayn, waxaan ahay walaalkiin shaashaa oo idiin dardaarmaya alla ka cabsi iyo cilmi raadin.